يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر ماشي إنه challenge يبو نبغو تلمامي dadka waqti baa ku iman doona qofku diintiisa inuu haysto oo ku dheganaado ay la mid tahay nin dhuxul haysta yani dhuxul daba inaad qabataa waa challenge adag waqti ay sida diintu ku noqon doontaa iman doonta ama xadiidka ibn mas'uud warinayo inna min waraa'ikum zamanu sabr litamassuku fihi ajru 50 shuhada minkum maalmaad dambeeya qofku diintiisa inuu ku dheganaado uu la mid yahay konton idinka ka mid ah nabigu tilmaamay laakiin insaanku dhibta tirada badan la uma adkaysto ilaa inuu ilaahay xidhiidh dhab ah la leeyahay mooyaane sawgeed baa waxa la yidhi yaa ayuhal muzammilu qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا واذكر اسم ربك بكرة أوكي إلهي وحلي كان استوضوب يو كع كيسدد يوبا ليلي كعو إلهي ستاك markaad dhibi ku qabsato nolosha caadiga ah haddii adigu aad iska qaadi kari weydo maxaad samaysaa sida normalka bini'aadamka lagu yaqaano waxa weeyaan inuu fakaro asxaabtiisii ciddii xidhiidh kala lahaa war maanta yaad mushkiladan yaa ku caawin kara maalan problem dhaqaalaha kugu dhacay marka koowaad aad mushkiladda xalili karay waxaad soconaysaa bartalo yaad wax ka soo amaata ama wax ku siiya marka maskaxdaada markaaba waxa ku soo degdegaya midhadhkii xidhiidhkii nuu fiicnay ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkan aad tiraahdo warbal waxay amaahimo inaad wax ka weydiin inaad wax ka heshaba waa suurtagal qofka muslimka ee dhabta ahi markay dhibi ka hor timaado xalka koowaad ee uu raadiya waxa weeyaan rabbu samaawaati wal ardi inuu xidhiidh la sameeyo man biyadihi malakuutu kulli shay ilaaha gacantiisa wax waliba ku jiraan albaabkiisa inuu garaaco ساوجد النبي محمد بركي دبتو كهرت بإلهي وحليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا كانس دادا يو كانس تضوبا يو كع هبيكي انتي سبضاني يرمو يعني نسكي أما وحير كي يريبا لي حلقوا علي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا بإلهي ورعلص بالغودي بيه دعوذن هي الدين كان هي القرآن كان هي السيستم كان ينطقاضا أرين فضود ما هبا إلهي لي ورعلص بالغسين يا لكن وركن علص وحقوف فضوين يا وامحي حديد كاد إلهي لا لا كلما حديد كانوا رب لا لأنه ضعيفه اسبدل كانوا لش إني حق حمي ودقدقية مركز تو حوق يستحديد كاد إلهي لا لا ضهينا حجسدد حجسنيس الدين كاغيه وحاقو وحوقو بيا إذن آيات كان مركان اسكو صوت دارو أنا قول رباينا الرأي قودون كتلمامو كوبا وحويان إن وحلا برتو ودين تادا عن علم ناتكو سقراتو وايو شبهاتك كما جوابي كرتيد أما مكر نولان كرتيد علم مو يعني شبهات دليل باكا ريحي كرا دانا الدليل هيسانين واتشابيسا إذن علمين ويهي لابد شهوات كنا حديد كاد إلهي لا دي بدني دي سريحة أنا دي إلهي حديد بدن لا يالط فافنت الدين تنا environment بيكو أبو ريسات كل إحنا ولا انكرتيد إن الدين تفافي سيد ومركاسي أدفافي سيد صحابة دي النبي مركا مسائل كاكو أتكايستين noloshu umay fududayn nolol adag bay la kulmeen qaar la torture gareeyo qaar la dilo qaar torture-ka ku dhinta isagoo nabi maxamed arkaya alayhi salaatu wasalaam qaar torture lagu dilo saxaabadiisa kamida qaar sidii loo torture gareynayay iyagoo tii u dambaysay laga sii daayo nooc walba way yeesheen haddana ilaahay wuxuu leeyahay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بإلهي مؤمنين توحى كمد الرج كرن شيء وحي إلهي وبلن قادين
soo sheego qadiyatu sidqi dan kalama hadlaynin ka run sheegay wixii maxay ballana ay ilaahay la galeen fa minhum man qadaa naxba wa minhum man yantadir baa layidhi waxaa ka mid ah qaar sidaa ku dhintay iyagoo jidkii ku taagan iyo qaar sugaya waddadaas inay hayaan ilaahay markuu saxaabadaa tilmaamaya waxaa lagu tilmaamay rijaalun laa tulhiihim تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والركبة إلهي إليه كواسي أنا مشغولين تجارة يا بيع يا وحقدست يا بعمشة لعك حكسي وما الدنيا حكسي وأنا كم مشغولين عن ذكر الله إلهي حسكيس وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صلاة دوغستيدا marar badan waxaa idhahdaa su-aalaha soo noqnoqda had iyo goor waxaa ka mid ah salaada iyo shaqada sheekh dee shaqadii maxaan sameeyaa salaadiiba caynkan salaadiiba cayn waayo shaqada xaggeena muhiba laakiin tan kala agteenna ah taqiilka loo raaday shaqada qiil u raadin maysid iyada shaqada waa shaqo waxaa u baahan in qiil loo raadiyaa waa maxay waa salaada iyo saa loo tukanayay إلهينا وحطو تلماما قولة تنوحا لغو سفين يهين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وايو يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ما لبي كعب سنة يعني dad shaqada in laga eeriyo dhaqaale darrad ka yar cabsanaysa laakiin qoladani waxay ka cabsanayaan maalin qalbiyada iyo garaadka iyo indhiga iyo wuxuba gelgelmaan absida maalinta ka haysa daraadeed mar kasta iyaga waxa priority-ga u leh number 1 ah cibaadadoodii iyo kooga